السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناسن داودياشنا قيمها يقايا مدن كسو دوادا جنال كين الصومالي وفيشل فضلان داود هديه تامرك كوريسي aan soo booqto fadlan subscribe sar si muuqaalada inuu soo galino maalin waliba aad u noqoto daawadaha u horeeyay markaasi daawada la wadaaga asxaabtaada wixii afkaar qaybta commentiga ayaa noogu reebi kartaan waana ku maasantiin sida quruxda badan ee aad mar waliba uga falcelisaan muuqaalada aan soo galino boggeena YouTube-ka dabkan ayaa ka kacay kaalin shidaal oo ku taala xaafadda Hilaac ee magaalada Boosaaso shidaalkan dabku qabsaday ayaa waxa ku baaba'ay ku dhawaad 500 oo fuusto oo isugu jira shidaal iyo gaaska diyaaradaha oo isagu khatar ku ah meelaha ay dadku ka agdhow yihiin waxa goobtaasi gaaray gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Abwan gudoomiyaha magaalada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir iyo laamaha ammaanka ee magaalada Boosaaso waxa ayna qayb weyn ka qaateen dabinta dabkaasi waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay mulkiilaha guriga dabka ka kacay abaaro 12 barqanimo ayaa waxa ka bilaabmay hoolka kaydkan aan hadda taaganahay waxa ka bilaabmay qaybtiisa horeeto dab baa ka bilaabmay 12 barqanimo subaxnimo ayuu ka bilaabmay alxamdulillah hadda waa dhow yahay waana dawladda hoose golis maxay ahayd dabdamiskii waana la shaqeeyeen waana noo yimaadeen gurmad fiican baan helnay shacabkii waa noo yimaadeen waana la shaqeeyeen ma sha Allah waa mahadcelinayna gudoomiyaha gobolka dhinacay uu taagan yahay taliyaha qaybta wayla jooga aad baan ugu mahadcelinaynaa markiiba way noo yimaadeen oo way nala shaqo galeen booyadihii laftakooda waa mahadcelinaynaa way nagala qayb qaateen hantida meesha taalay hanti badan baa meesha taalay garaash buu ahaa qolooyin badan oo u yaaleen shirkadda dalka baa ka mid ah maxay ahayd waxa yaalay gaas badan waxa yaalay daamur badan waxa yaalay hanti fara badan oo kaleeto warshada bulkeedka samaysa waxa yaalay qalabka oo aluminiyumka oo kaleeto oo keedad ahaa intuba waxa weeye boqolkiiba 85 waxaan oran karnaa way ku basbeeleen waa magaalada koonfur qaybteeda koonfureed garaash weyn oo keedad iyo guri deegaan la dabkaas ka dhashay hanti fara badan ayaa oo leyd oo shidaal diisel gaaska diyaaradaha oo suuq dhacmalaha ku dhacay muddo badan meesha ku hayeen naafto daamurkan laamiyada lagu dhigo garaash weyn buu ahaa lagu soo dejo kayd ah xagga hore wajahada sida idinka muuqatana deegaan ayuu ku lahaa malaa waardiyaasha guryaha waxa loogu talagalay inay seexdaanin ilaahay mahadis shaqadaas 5 saac ilaa 6 saac ay qaadatay boqolkii 90 hadda waa lagu guuleystay waa u jeedaanin gobol iyo degmo iyo dawlad iyo ciidan looma kala harin aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa meel kasta ay ka yimaadeen gubernatooraha gobolka ilaa 5 saac maanta joogay taliyaha qaybta ganacsatada taliya ku xigeenka qaybta haweenka dawladda hoose dhammaan ka soo qaybgalayaasha meediyada ciidamada faraha badan dadka shacabka oo gurmad fara badan ka geystay ama biyaha keeneen shirkadda golis oo aad iyo aad markasta heegan u ah ganacsatada ahaayoo meeshaan shaqada ku jiray khasaaraha waxaan cadaynaynaa inaan wax nafi aysan jirin oo naf ku baxday aysan jirin laakiin khasaare maaliyadeed uu jiro oo maal badan oo meeshan ku burburay guriga aragtaan uu ku burburay laakiin ilaahay wax lagu mahadiyo waxa inaan guri kalena la gaarin dabkuna uusan ka fidin intii uu qabsaday maaha xataa derbiga aanu ku jiro gadaashiisa aan naga damaysa dabku ma soo gaarin ilaahay mahadiis weey waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan bulshada gobolka Bari noocay tahayba siday u soo gurmadeen noocay yihiinba shirkado iyo cid walba iyo cid kastoo si xaqaatay dhammaan madaxda dawladda oo joogta gobolka gudoomiyuhu ugu horeeyo ciidamadii amniga kulli waa u mahadcelinayaa inay ilaaliyaan hantida bulshada oo ay u igma yihiin inay markii khatar u yimaadaan ay qaybta ay leeyeen ka qaataan aad baan ugu mahadcelinayaa waqti dheer iyo intaan meesha taagnayn iyo sidii gaad loo keenay dadkii booyadleedaha oo booyadaha ka shaqeynayay oo iyaguna gacan weyn ka geystay oo markii loo tagay ay aqbaleen inay ummadda badbaadiyaan hantideeda iyo ama naf iyo maal aad baan ugu mahadcelinayaa iyagana ganacsatadii waxaan leeyahay waxa weeye khasaaraha kulli tiradu intay tahay dib bay ka soo sheegayaan xaqiiqda runta ah kan ka kacay sida ay sheegeen duqa degmada iyo taliyaha qaybtu xaafadda Hilaac waxaan runtii rabaa mahadcelin ilaahay subxaanahu wa tacaala oo runtii dab aad khatar u ah oo uu ku hoos jiray ka kacay shidaal iyo gaaska diyaaradaha iyo waxyaabo la mid ah batrool iyo naafto iyo oo runtii halisteeda lahaa maanta qofkii joogay baa arki karay sida barnaamijku u kacayeen iyo qaraxyada ay sameynayeen
mahad celin ilaahay subxaana wa tacaala kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii ka qayb qaatay deminta dabkan oo ugu horrayso dabdamiska shirkadda gollis iyo shaqaalaheeda dabdamiska dawladda hoose degmada Boosaaso iyo dhammaan oo halka duqii degmadu taagnaa kusimii duqa xogayihii agaasimayaashii waaxyaha dhammaantood shaqaalii dawladda hoose aad baan ugu mahad celinayaa iyo waxaan kaloo rabaa inaan u mahadiyo dabdamiska dekedda Boosaaso isagoo goor dambena soo gaaray oo runtii shaqo xoog leh ka qabtay isaga iyo shaqaalihiisaba iyo shaqaalaha dekedda oo dabdamiskan saaraaba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo kale taliyaha qaybta ciidamada booliiska oo runtii shaqo xoog leh markiiba aniga taliyaha meel baan wada joognay xarunta gobolka aan joognay markii telefoonku nagu soo dhacay amarkii hore ciidamada booliiska la siiyay oo iyagu ka qayb qaatay ammaanka goobta u sugi lahayn dabkana uga qayb qaadan lahayn dabkan ayaa ka mid noqonaya dabkii afaraad oo muddo 2 bilood gudahooda magaalada Boosaaso ka kaca waxaana booliska iyo mas'uuliyiinta gobolku ka qayb qaateen sidii ay u damin lahaayeen dabkaasi maxamed cabdilcasiis maxamed khan Somali Official magaalada Tani Boosaaso.